waxaan u hambaleynayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo si aqlabiyad leh ku ogolaaday qoondadii xaq ahaan u lahaa gobolka Banaadir dadka degan ay u lahaayeen. sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa dowladda xilligan jirta siday uga go'need in ay helaan matalaad shacabka ku nool gobolka Banaadir ee Soomaaliyeed oo qabiil gaar ah ahayn. intaas kadib waxa soo baxay warar haba u badnaadaan maamulka Puntland ay ku diidayeen amba ku dhaleecaynayeen amba si xaasidnimo ku jirto ay u muujinayaan dadka gobolka Banaadir. waxaan aaminsanahay dadka gobolka Banaadir qabiil gaar ah maaha, waa lagu kala badnaa karaa, laakiin magaaladani waa magaalo la wada degan yahay. haddii 13 xubnood la siiyana macnaheedu maaha 13 xubnood oo la siiyey oo loo ansixiyey in reer gaar ah loo ansixiyey. waxaan arkaa marka maamulka Puntland dagaal oo kula jiro gobolka Banaadir dadka degan. waa ka xunnahay runtii reer Puntland dadka ka yimaada halkan madaxay ka noqon jireen ama madaxweyne ka noqon jireen ama ra'iisul wasaare ka noqon jireen ama madaxweyneyaal baan dhaho dadka gobolka Banaadirna waa kula shaqayn jireen sharud la'aan. waxaan ka xumaa marka fariinta khaldan ee madaxdooda u soo dirayso dadka gobolka Banaadir ku nool. ma aaminsana inay shacabka Puntland ku metelaan. shacabka Puntland degan iyo kan Baydhabo degan iyo kan Banaadir degan waa ummad Soomaaliyeed. ayagoo hadda coday doorteen oo codkooda ku doorteen oo loo ogolaadana weli may dhicin. marka waxaan leeyahay Puntland, madaxda Puntland waxaan leeyahay haddii aad farmaajo kula dagaashan tihiin maxaa Garowe loo imaan waayay marka doorasho dhici tagto Garowe 1 iyo Garowe 2 la imaan jiray. hadda Garowe ma aha xaramka laguma qasbano in la tago marka doorasho la tago. Garowe waxa kamid tahay waxaan maqlaa in oday hodhaaya dan reer Garowe nahay waa inaan Soomaaliya ka go'an oo waliba mas'uul ah. haddii good sheeganayaan hadday iska daayaan waa hawl ayaga u taalla iyaga iskale qayaarkood. laakiin haddii madaxdii hore ay ku qasbi jireen in marka doorasho la tago waxa dalka lagu dhaqayo iyo dastuurka dalku yeelanayo in Garowe lagu soo ansaxsho. waxaan uga mahadcelinayaa xukuumadda hadda jirta inay xor ka tahay inay qolo la haysto u noqoto, in ay ku dhaqanto dastuurka sidoo qabo, inay shacabka cadaalad samayso oo kii hore wax u lahayna wixiisa u difaacdo, kan wax lahayna ay u doodo oo madaxweynaha ugu horeeya uu yiraahdo hala siiyo xaqooda. darteed waa inaad kala saartaan mucaaradnimada ama diidmada ama colaadda u qabtaan madaxweyne Farmaajo iyo gobolka Banaadir. madaxweyne Farmaajo dabcan waa madaxweynihii waddanka, waa qofka ugu dambeeya control sharci ilaaliyaha ah. dadka gobolka Banaadir waxaan la qaybsanayaa mahadcelinta ay u jeediyeen inuu dadka xaqoodii oo baarlamaanka horgeeyay oo ka codsaday. kuwii aqbalay oo baarlamaanka guddoonka baarlamaanka ugu horeeyna waa mahadsan yihiin. waxaan ka xumahay odagii Soomaaliyeed ee Cabdi Xaashiyaha ee aqalka sare joogay inuu arrintii gobolka Banaadir oo aan aaminsanayn inuu asagu ahaa odagii ay ahayd inuu hormaro oo ku tilmaamo sharci darro qoondada la siiyay gobolka Banaadir. waa ka xunahay iyadana aqalka sarena waxaan uga fadhinaa dad Soomaaliyeed oo la isu keenay yihiin dadka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir degan inaanay ka hor maanshuumaba dhacayso waa la ansixiyay oo waxay noqotay arrin dastuuri. laakiin inay noo muujin ama u muujin ummadda gobolka Banaadir degan fikrada ka dhana oo aysan kala mid noqon gobolada kale ee colaaddu ka soo baxayso. sidoo kale waxaan u hambaleynayaa guddiga doorashooyinka oo la yimid qorshe dhab ah oo doorasho lagu galayo 2021.
waxaan leeyahay ha laga dhabeeyo, ha lagu shaqeeyo, ha la dhammaystiro waxyaabaha ka dhiman ama baarlamaan ku dhiman ama xukuumadda dhinaceeda ku dhiman. xisbiyada annagoo aan ka mid nahana laftirkeenna waa inaan baaqaan u jeedinaya inay ugu diyaar garoobaan doorashada waddanka si ay uga qayb qaadan lahayn, maadaama fursad loo siiyey 50 sano kadib in nidaamka axsaabta badan doorasho lagu galo. waxaan arkaya madax badan oo madaxdii hore ka mid ah oo dhahaysa doorashadii dib loo dhigay sidaa darteed dastuuraa la jebiyey. dadku may dhalan 2016 kadib yaa wax dib u dhigay madaxdii hore, qaar sanaday ku darsadeen. dowladda ugu dambeysay waxay ku darsatay mandatekeedu September ku akaa, February doorasho qabatay madaxweyne. dowladda hadda jirta oon go-aanka iyadu lahayn dabcan oo guddiga u eg doorashooyinka sida loo qabanayo technically, guddigana waxay soo sheegeen in 2021 dhexdeeda lagu qabanayo. marka waxay la tahay reer wadde haddii aad doorasho ka hadlaysaan dib u dhacu kama bilaaban in bilayaal wax dib u dhacaan xilligaad xukunka joogteen ay dhacday, sanado iyo bilooyin badan ku darsoomi jireen waana la idinkula shaqay jira. anigu marka waxaan u arkaa ama xisbiyahan waxaan u aragnaa technical time wax ku yimid inay tahay, uma aragno wax ku talagal extension ah. extensionna hadee lagama hadlinba. yaa dib wax u dhigay? waxa dib wax u dhigay qoladii shaqada laga sugayay dowladaba maaha. waxaa sheegay shaqada inaan xilligaa ku qaban karin waa guddiga farsamada loo xil saaray arrimahaas. waxay sheegeen jadwalkooda iyagoo waliba alternative u sameeyo kana waa sidaan kii Soomaalidu qaadato ama baarlamaanku ansixiyo ay arrintu tahay. marka ma mudno in lagu aadayo guddigu, cidda shaqo loo diraahay waa in laga sugaa shaqadeeda siday ku hagaaji karto, siday ku qaban karto. cidda shaqada kule waa inay ku kontrolsho. marka inaan marmarsiyo laga dhigan oo laga dhigin in balaayo dhacday oo 6 bilood maaragtay dib loo dhacay, in xisbiyada qaarkood aanay ka dhigin wax issue ah oo la sameeyay oo xukuumaddaani sameysay. dib waa u dhac jirta doorashadu. waxa muhiim ahayd in waqti la sheego lagu shaqeynayo waana la sheegay. cidda wax isku haysa sumcad ay ku tartanta haysata waxay la tahay in hadda August 2021 halka ay ka ahaan lahayd February August bilaha u dhaxeeya waa bila la wada garanayo oo dib lama dhigi karo extension kama iman xukuumadda aydan. xukuumadda waxa looga fadhiyaa ayadana oo dabcan aan laga aqbali doonin inay August dib la sheegay dib uga sii dhacdo. processka sida guddigu u sheegay inay ku shaqeynayaan waa inuu u qabsamo, waa inaan August dib looga dhicin, waa in laga jaahil bixiyaa dadka ama marmarsiyada kale dad sheegayaan yani August xataa wax ma qabsoomayaan. anigu de meeshii ka ogaadeen ma ogi. waa in laga taxadiraa marka inayna dhicin waqti kale oo xilligii guddigu sheegay doorashada lagu qabta. waxaan soo jeedinayaa in midnimo lagu wada shaqeeyo oo axsaabta waddanka iyo dowladda iyo dowlad goboleedyadu processka la isla wado la iskalana shaqeeyo. waa cidda hadda u dan leh in ay doorashada waddanka qayb ka noqoto. cidda wax kale u jeedaa lama qanci karo, ma qancayso qofka wax kale aaminsan ama shisheeye inuu adeegto ha ahaato ama ha ahaato in haddaysan iyadu wax helaynin ay ogaatay in iyaduna ka shaqeyso sidii wax u fashilmi lahaayeen. waddanku midnimo u baahan yahay aan doorashada ku aadno. waddanku wuxuu u baahan yahay in loo tartamo awoodiisa oo aan qolana gaar aanay u yeelan sida dastuurka noogu qoran. waxaa noo qoran 4 sano kasta inay doorasho dhacdo. waxaa hadda la sheegay inay ku darsoomeen waa bilo kooban. dowladdana ayadana waxaan uga digaynaa anagoo daanahay isbahaysiga axsaabta xilliga hadda la sheegay inaan xilli ku darsoomin. sidoo kale xubnaha la sheegay in loo ansaxshay gobolka Banaadir ayadana dowladda waxaan ka sugaynaa dadka xaqa u leh in la siiyo oo ayada laftirkeeda aanay noqonin in baarlamaanka laga soo ansaxshay laakiin haddana hadhowti
meelo aanay mudnayn ama cadaalad darro kale la sii suubiyo dadka xaqa u leh oo deegaaniga wax ku fadhiya Puntland waxaan leeyahay dastuurka haddii Puntland 12 sanatar haysto sax ah haddii Banaadir 13 la siiyana jabay hadda dastuuran isla leenahay ma waa mid idin gaara dastuurku wuxuu sheegayaa si siman in wax loo yeesho wali gobolka Banaadir waa ku dulmeen si siman hadii la yiraahdo maamul gobolada qaar ka hor ka tira badan waxaan rajaynayaa wax kasta hal mar ma dhamaadaan in wixii dhiman ay Soomaalidu dib ka sax doonto hadii la yiraahdo waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed maadaama ay ku jiraan 60 guuradoodii xorriyadda horumar iyo barwaaqo iyo inay ka gudubto waxyaabaha aan waxba soo kordhinay 30 sano aan ku jirnay hebel baasaan yiri hebel baa wax waan islaha reegarow waa ka garad weyn yihiin inay ku doodaan haddaynan anagu talinayno Soomaali u talinayn Soomaali ma jiri kartaa ama ma shaqayn kartaa ama dawladda ma shaqayn karto Soomaali u taliyo tartamo imaada waa noo tali jirteen Soomaalida madaxda waxaan jirteen dadka yimid garow iyo gobolada kaleba walina waa dadka Soomaalidu hadda tartamaysaan oo xaq wax ku raadsanaysaan diyaar u yihiin inay doortaan laakiin goosanayna haddii gobolka Banaadir la siiyo wali waxa aan u qalmin marka loo fiirsho ummadda halka degan waxay la tahay fariintaas hadda inay farmaajo u diraan u maleeyaan oo may dirin farmaajo ee waxay u direen gobol gaar iyo dad gaar waxaan isleeyahay Soomaalidu waxay ku wanaagsan tahay in la isku wado odayaal waaweyn oo carraa oo mas'uuliyiin oo inay hadda yiraahdaan hadiiba gobol hebel xaq u lahaa la siiyay anagu waa goosanayna goosashadu hadii xataa laga aali waayo waa goosanayna la yiraahdo mushkilada ma Soomaaliland waa goosatay baarlamaankana waxay ku leedahay xubnihii iyo wasiiradii ay ku lahaayeen haday joogaan haddii waxay la tahay Puntland haddii hadda madaxda joogta yiraahdaan waa goosanana waxa inta ka duwan ma laha dadka Soomaalida ee Puntland jooga dawladda waa kamid ahaan doonaan waana kamid yihiin sida kuwa kale uga mid yihiin marka shacabka Puntland waxaan ugu baaqayaa inaysan madaxdooda ku daba kacin khalad iyo in Soomaali laga gooyo in Soomaali la yiraahdo loo tuso in Soomaalida cad ku tahay Soomaaliya waa mid waxayna leedahay hal dal waxay leedahay hal dastuurkaas waxa noogu qoranana qolo walba xaqeedii sheegaya Soomaali ka sarreysa ama gobol ka sarreeya ama gobol ka mudan ama gobol ay tahay marka doorashadu dhici tagto in la tago wuxuu isagu rabo dastuurka lagu soo qoro ama sida wax ma jirto dawladdu waxaan islahay waxa u yaala waxay tahay processkaas sida dastuurka qoran inuu fuliso waana uga fadhinaa waa mahadsantiin